mahadsanid khadar daawadayaal xubinteena tabiyaha TV-ga dowladda Puntland toddobaadkan waxaanu ku soo qaadan doonaa kobaca guud ee waxbarashada degmada Burjile anagoo si gaar ah isu dul taagi doona dugsiyada sare oo soo wajahday fasal la'aan degmada Burjile ee gobolka Nugaal oo ah degmo ay ku dhaqan yihiin dad lagu qiyaaso 90,000 oo qoys waxaa 4 sano ee ugu dambeysay ay ku tilaabsatay horumar badan gaar ahaan xagga waxbarashada waxaana ka furan goobo waxbarasho oo dhan 22 dugsi oo saddex dugsi sare iyo goobo badan oo isugu jira macaahidi iyo bareefado kale oo soo saara arday aad u fara badan dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare ee degmada waxaa wax ka barta arday ka kooban 6,633 arday kuwaas oo ay si gaar ah isugu hawshay wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland isla markaana gelisay dadaalo fara badan haddii ay ahaan lahayd kormeeridooda agabka wax lagu baro iyo tayeyntoodaba gudaha sanad dugsiyeedkan haatan lagu guda jiray 2016-2017 mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland waxa ay si isdaba jooga degmada Burjile uga dhameystireen mashaariic ay kamid yihiin dhismaha cusub ee dugsiga hoose dhexe Al-Culuum oo laga hirgeliyay xaafadda Israac ee magaalada Burjile balaarinta dugsiga hoose dhexe ee mustaqbal oo ay wasaaraddu ku daray qayb cusub iyo dayactiro lagu sameeyay dugsiga hoose dhexe ee Nasteex ee magaalada Burjile waxay sidoo kale wasaaraddu kormeer joogto ah ku sameysay dhammaan dugsiyada degmada iyadoo ka duuleysa qorshaheeda tayeynta waxbarashada iyo ilaalinta hababka beddelka iyo imtixaanaadka dhinaca kale waxa ay mamnuucday oo albaabada u laabtay dugsiyada aan ka diiwaan gashanayn wasaaradda iyadoona dugsiyadii kala qaybo kamid ah ku soo rogtay shuruudo laga doonayay inay buuxiyaan dugsiga sare ee Burjile Secondary School waxaa la aasaasay sanadii 2004 waxaana dhismihiisa si kaashaday wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland iyo shacabka degmada Burjile waxaanu soo saaray 9 dafcadood oo ka qalin jabisay iyadoona waqtigan ay wax ka barato arday tiradoodu kor u dhaafayso 500 oo arday waana tiradii ugu badneyd ee arday uu qabtay dugsiga tan iyo markii la aasaasay sanad dugsiyeedkii la soo dhaafay waxaa dugsiga sare ee Burjile uga soo baastay fasalada sideedka ee dugsiga dhexe in ka badan 200 oo arday taasi oo muujinaysa kobaca iyo horumarka waxbarasho ee ku tilaabsatay degmada Burjile guddoonka waxbarashada maamulka iyo guddiga waalidiinta dugsiga sare oo tixgelinaya baahida fasalada loo baahan yahay maadaama ay siyaaday tirada ardayda waxa ay baneeyeen qolalkii lagu isticmaali jiray laabka chemistry-ga qolkii kombiyuutarka lagu dhigan jiray istooradii ama qolalka kaydadka iskuulka iyo qolal badan dhammaantoodna waxa ay ka dhigeen fasalo si ardayda cusbeed loogu helo fasalo ay ku qaataan duruustooda guud ahaan ardayda dugsigan wax ka baratana haatan waxay casharada ku qaataan 11 fasal waxaana ka jirta baahi dhisme oo wuxuu u baahan yahay in lagu kordhiyo fasalo ay wax ku bartaan ardayda cusub oo imaan doonta haddii uusan dhisme cusub helinna ma qaadan karo arday kale axmed cabdirasaaq dheereeye maamulaha dugsiga sare ee Burjile ayaa warbaahinta dowladda Puntland uga warbixiyay xaaladda dugsiga iyo waliba marxaladii uu soo maray haddaan wax yar ka taabto dugsiga runtii dugsigu waa iskuul ballaaran waana iskuullada Puntland ugu faca weyn oo dugsiyada sare lagu aasaasay ugu faca weyn ka mid ah runtii markaa dambaysa laagsan waxaa dhacaya in bulshadeenu ay siyaadayso waxbarashada xaggeeda dugsiyada hoose dhexe ardayda soo baxaysa ee dugsiyada sare soo baxaysa markaas waxaad dareemaysaa xajmiga waxbarashada ee kor u kacaya marka runtii ardaydu kor bay u kacaysaa sanadkan ka dambeysay foonka ardayda ay ka sii badanaysaa iskuulku si habsami u socdaa wuxuu ka kooban yahay foon ilaa foon 4 500 oo arday maanta enrollment-iga ama tirakoobka ardada ee maanta dhiganaysa ay gaarayaan iyagoo galaaska uu ka hooseeyo foon 1 oo ugu badan foon 2 foon 3 foon 4 runtii waxaan rajaynaynaa inaan insha Allah imtixaanka qiimeynta wasaaradda waxbarashada ardayda foon 4 nooga baxay qiimeyn fiican iyo tartan fiican aan ka galno Puntland waxa lagu yaqaanaa tartan waxbarasho oo dugsiyada sare ku tartamaan taas horta waa hadafkayga koowaad waxaan rajaynaynaa anaga macallimiinteeda dadaal badan gelin doono aan dadaaleyna wasaaradda waxbarashadu wax badan bay qabatay iskuulka hadda kuraastii oo soo socota ardada runtii agaasimaha guud iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka iyo kormeeraha guud oo yimaadeen baahiyo badan bay arkeen runtii baahiyaha aad u agaasimaha guud run ahaantii oo arkay waxaa kamid ahaa iskuulka in boqolkiiba 40 ardadu ay gabdho tahay markaas ay soo baxayeen break runtii agaasimaha guud Dr. Maxamed aad baan uga mahadcelinaya runtii markuu arkay wuxuu isla bartiba ka ballan qaaday inay wasaaraddu ay gabdhahaani meel ay galaan oo ah meeshii gabdhuhu ay ku nasanayeen oo xaajooyinkooda ay ku gudanaysan lahayn gabdhaha xajmigaas la iskuulka dhigta oo boqolkiiba 40 ardada ka marka aad baan uga mahadcelinayaa kormeerkii ugu dambeeyay wasaaradda waxbarashada kormeeraha guud iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka iyo agaasimaha guud ku yimaadeen aad baan uga mahadcelinaynaa horta waxaan leenahay marka kormeerkaas aad baan wasaaraddu ay baahiyaheeda ugu gudbinay baahiyaha kale ay arkeen kormeerkaas waxaa ka mid ahaa inay jiraan iskuulku inuu soo yaraanayo galaasyada iskuulka oo iskuulkii uu galaasyada soo buuxsameeyaan oo haddaba ay buuxaan
sidaa awgeed waxay wasaaraddu ballan qaaday laftigeeda iyadoo la kaashanaysa saaxiibadeeda iyo wasaaradduba iyo bulshada dugsiga sare ee degmada Burtinle iyo degmada Burtinlaba in iskuulka ballaarin lagu sameeyo haddii aan sanadka oo ardada dugsiga dhigata ay uga ballan qaadeen iyo maamulka iyo macallimiintaba inay wasaaradda waxbarashada dugsiga ay ballaarinayso bulshaduna ay keensato qoondadeedii bulshada waxa ay iyadu uga qayb galayd ay keento runtii waxaan leenahay wasaaradda waxbarashada iyo kormeerka noo yimid anoo diyaar garoobina waxaan ku sii adkeynaa in iyaguna ay ballantii iyo diyaar garowgii aan ku jirno dhibaatada waxay ka dhacaysaa hadda ardadii macallimiintii chemistry labki meesha ay ku siin lahayn glass way faforka ku dhiganaya oo meeshii library-ga ardada wax ku akhrisan lahayd howlkii library-ga ahaa ardada waa ka rabnay buugta store baan geynay si ardada wax ugu akhrisato library-gii meeshii ardada wax ku akhrisan jirtay glass baan ka dhignay taas oo culayskeeda leh oo ay dhirka soo baxaya iyo runtii ay ardadu ay culays ka keenayso xaggaas tirada ardada soo baxaysa marka runtii wasaaradda waxbarashada dhowr jeerna waa codsigaas iyo qoraal iyo kulan iyo imaansho iyo kormeer baa noogu yimaadeen runtii waxaan rajaynayaa haddii alla baahidaas ee dhismaha inay wasaaradda waxbarashadu boqolkiiba boqol uga dhex qayb qaadan jirtay iskuulka iyadaa horey u dhistay iyadaa horey u dayactiraysay inay uga qayb qaadato oo ay fuliso haddii alla idmo magaalada Burtinle ardayda fasalada sideedaadka ah dugsiyada hoose dhexe aad bay u badan yihiin ardayda fasalada sideedaadka ah waxaa laga cabsi qabaa inaysan dugsiyada sare aysan ka heli karin kalaas ay wax ku bartaan marka taas ka hornayada runtii waa ta hadda ka hadlayo wasaaradda waxbarashada kolba iyada imtixaanka ay dhirkana ka qaada fanfaradana ka qaada way la socotaa xajmiga ardada dugsiyada hoose dhexe ka soo baxaysa degmada Burtinle ardada ka soo baxaysa ay dhirka waa arday u diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada kormeerka ku timid xogtii waa siinay maadaama aan hadda galaasi aan ahayn ardada soo bixi doontaa ay ka badan tahay galaasi ardada imaanaya wasaaradda waxbarashada waxay ballan qaaday inay dhismayaal fulinayso dugsiga sare ee degmada Burtinle annaguna bulshadii ay wax la yimaadaan marka ila imaashii bulshadana diyaar weeye wasaaradda waxbarashadana waxaan rajaynayaa in insha Allah si awalba u dhisaysay uga qayb qaadanaysay waxbarashada inay uga qayb qaadanayso daaladno waliba waqtigeeda oo hadda maadaama aan teeramka dambe la marayo in teeramka ilaa iskuulka inta fasaxa lagu jiro ay wasaaraddu kolba meelay tuujinayaan haddii aladno inay wasaaraddu dhisaysaa rajaynaa haddii aladno aad baanan ugala hadalnay marar badan oo ugu celinay weyna jidhaa xajmiga ardada soo gudbaysa inaysan loo hay meeshii ay u soo gudbayeen ardada tiradaas la eeg sidoo kale magaalada Burtinle waxaa ka jira dugsiga dhexe sare ee Al-Mumtada oo la aasaasay sanadii 1998 waxaan dhistay isla markaana 9 sano ugu horeysay maalgelinaysay hay'ad khayri oo lagu magacaabo Al-Mumtada Al-Islaami oo lagu magacdaray iskuulka isagoo soo saaray 17 dafcadood dugsiga Al-Mumtada waxa uu ku bixi jiray manhajka Carabiga balse dadaal badan kadib waxa la hoos keenay wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland isagoo sanad dugsiyeedkii 2013-2014 markiisii ugu horeysay ka qayb qaatay imtixaanaadka wasaaradda dhinaca kale waxa uu dugsigu ka qayb qaatay isla markaana guulo badan ka soo hooyay tartamada dugsiyada sare ee Puntland loo qabto bisha barakeysan ee Ramadaan oo ka galay kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad xilligaana dugsiga dhexe sare ee Al-Mumtada waxa wax ka barta arday tiradooda kor u dhaafayso 335 arday kuwaas oo duruustooda ama casharadooda ku qaata 12 class 19 sano uu dhisan yahay dugsiga Al-Mumtada ma jiraan wax dayactira ama dhismayaal lagu daray marka laga reebo dhismayaal ilaa 3 fasal oo ay 2003 ku kordhiyeen muxsiniinta Soomaaliyeed waxaana haatan isna haysta baahi aad u baahsan oo qaybta dhismaha ardayda cusubna ma helayaan goob ay wax ku dhigtaan maamulaha dugsiga dhexe sare ee Al-Mumtada Cabdikaafi Maxamed Dirir ayaa warbixinta dugsiga oo dhameystiran la wadaagay barnaamijka tabiyaha TV-ga dawladda Puntland wasaaradda waxbarashada ee Puntland waxaa rabaa in xog kooban u soo gudbiyo ee ku saabsan iskuulka Al-Mumtada Burtinle dugsiga dhexe sare ee magaalada Burtinle dugsigaas oo saan ognahay iskuulka ugu horeeyay ee laga furay 1998 Burtinle uguna fac weyn iskuulada ka jira degmada Burtinle runtii wax weyn magaalada u qabtay oo ku soo kordhiyay oo ay ardadii ka baxday sidaan ognahay iyagoo dhaqaatiir ay joogaan iyagoo macallimiin iskuulo badan ay yihiin maamulayaal ay ka yihiin iskuulkaas wuxuu qabaa baahi aad iyo aad u weyn oo xagga siyaadinta qolalka ah maadaama magaalada ay korayso waxaa la koraya dadkii magaaladu waa ballaaratay 2 secondary hadda leedahay dhulka uu haystay iskuulku 128 dhul oo bannaan buu leeyahay falilaahi alxamdu oo dhul aan ma hayso laakiin waxa aad iyo aad hadda ciriir u ah qolalkii waxa lagu dhiganayay hadda dhaxihii ma qaadi kara sida muuqata sanadkii dhaweydna waan cilaaminay
in aanan qaban doonin dhexii oo ka jari doono ilaa iyo haddana ma hayno wax dhismaa kama hayno wasaaradda waalidiintuna saan ognahay waxay la daaladhacayaan fiiga ay ardada ka bixiyaan wuxuu marka u baahan yahay kordhin fasallo wuxuu u baahan yahay hool loo sameeyo wuxuu u baahan yahay rugsanta waxaa la yidhahdaa gabdhaha oo gabdhuhu waxay u baahan yihiin musqulo gaara oo ay ku nasan karaan qolka iskaga bedeli karaan dharka wasaaradda wax badan baan u gudbinay ilaa iyo haddana waxba kama hayno iyo hay-adkaba wuxuu u baahan yahay dayd dhulkiisa sidaan wanaag dadkii Soomaaliyeed waxaa lagu itixaamay dhulka la wada leeyahay ama dandan weyne loo xirmeeyo ama loo bixiyana dadku waxay u qabaan inaan cidina ka xigin iskuulka marka la xiro xilliyada xoriyada dib weyn baa naga haysta waa lagu soo durkayaa waa lagu soo dhawaanayaa taasina waxay u baahan tahay dayr dhulkiisa oo dhan lagu soo wareejiyo haddii aan la helinna dhulkiisii oo dadka muxsiniinta ay bixiyeen ilaahay khayraad si ajar xasanaad ka siiyo ninkii bixiyey oo dhulka ku deeqay xilligii ay bangiga islaamka ku dhisayeen dhul weyn buu ku deeqay dhulkaas marka dib weyn baa naga haysta xilliyada iskuulku xiran yihiin xataa usbuuc haddii la fasaxo oo hadda teeramkii maanta ka soo laabanayna dhagaxan baa la dhigaya dhib buu nagu haya oo dadka waa kusoo durkaya kaasina wuxuu u baahan yahay dayd ugu soo wareejiyo wuxuu u baahan yahay laab sidaan ognahay xataa ardaydu ma helin wasaaradda ma helin buugaagta hadda wax lagu dhigo agabkaas iyo agab kaleba waxaa kusoo kordhiyey ardadii hore uga baxday dal iyo deedba meel ay jiraan buugaag fiican bay u keeneen iskuulka waxaa lagu dhigay iyagaa iskale laakiin wasaaradda haba yaraatay waxba waa kamaan helin marka aad iyo aad waxaan ku baaqayaa wasaaradda waxbarashada ee Puntland ee tacliinta sare iyo hay-adka maaragtay waxbarashada taageero intaba iskuulkaasi inuu u baahan yahay dayacatir buu u baahan yahay oo isaga waxaa la dhisay 1991 dhismaha isagoo socda ayaa dowladdii dhexe ee dalka burburtay intii ka dambeysana wax dayactira ma helin geesta kala daawadayaal deegaanka Jalam ee degmada Burtile oo ah magaalada labaad ee ugu ballaaran uguna dadka badan degmada Burtile isla markaana ay wax ka bartaan arday aad u fara badan ayaa in muddo waxaa ka socday abaabulo xoog leh ay wadaan dadka deegaanka kuwaas oo ay dhaqaale isaga ururinayeen sidii ay ballaarin ugu sameyn lahaayeen dugsiga sare ee deegaanka Jalam oo haatan fasaladiisa qaar ka mid ah dulsaar ku yihiin dugsiga hoose dhexe kadib markii uu ardayda qaadi waayay maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee deegaanka Jalamna waxa culays ku haya in marka ay xiisad dhacdaba u kala gooshaan labada iskuul si ay isku bedelaan macallimiinta xiisad walba hase ahaatee sanad dugsiyeedkan waxaa sii kordhayay tirada ardayda imaanaysa iskuulka dugsiguna ma aha mid dabooli kara baahiyaha ardayda deegaanka Jalam oo waxa uu u baahan yahay inuu helo qaybo cusub oo ka kooban fasallo xafiis lab library iyo howlo shirar dadka deegaanka Jalam oo ka dhul sugaya dowladoodana waxay u muuqdaan kuwa u diyaar garoobay sida ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen daboolida baahiyahooda qaar ka mid ah gudiyada waalidiinta ardayda dugsiyada sare ayaa dhankooda sheegay inay walaac weyn ka qabaan fasal la'aanta soo wajahday dugsiyada waxaanu aad iyo aad uga cabanaynaa ugana walwalsanahay in dugsiyada sare ee degmada Burtile sanad dugsiyeedka 2017 ardada cusub oo ay qaadan doonaan aysan lahayn meeshii ay fariisan lahaayeen galaasyadii ay wax ku dhigan lahaayeen deegaanadii waxbarasho oo maaragtay waxbarashadu ugu suuragali lahayd maadaama marakan oo hadda ay buuxaan dugsiyada sare oo fasalladu ay ciir yihiin loona baahan yahay in la helo deegaan waxbarasho oo siyaada oo la helo maaragtay meel ardadu ay wax ku bartaan galaasyo cusub oo lagu kordhiyo dugsiyada sare dhamaantood waxaanu haysanaa deegaankii lagu kordhin lahaa fasalladaas oo noo diyaarsan waxaan codsanaynaa haddii ilaahay idmo dowladda Puntland iyo hay-adaha waxbarashada taageeraba in naloo kordhiyo oo naloo dhiso fasallo cusub si aan uga badbaadno gaabkaas ay gelayaan ardada cusub oo ah meeshii ay fariisan lahaayeen meeshay wax ku baran lahaayeen iyo maaragtay qaabkoodii oo dhan sidii uu maaragtay u noqon lahaa mid sax ah oo ardadu baahidaas galaasyada cusub ay u qabto ay uga bixi lahayd arrinka inta aan la gaarin waqtigii ardadu ay dhigan lahayd oo amaan ardada cusub inta imaan lahayd inta aan la gaarin waa in arrintaas lagu sii talagalaa oo dawladdu ku talagashaa gaar ahaan wasaaradda waxbarashadu waa inay ku talagashaa arrinka inay jirto oo degmada Burtile ay ka jirto degmada Burtile waxaa ka furan 3 dugsi sare malaha wali jaamacad waxaan dawladda iyo gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ka codsanaynaa in ay nala hirgeliso oo nagu taageerto sidii degmada Burtile
jaamacadaha Puntland ka jira faracyadooda ama jaamacad cusub ay uga hirgeli lahayd arrintaas maadaama sanad walba dugsiyada sare ee Puntland ay ka soo baxaan boqolaal arday kuwaas oo aada meelo fog oo kharash ahaan iyo maaragtay tasiilaad ahaanba waalidiinta dhib ku ah waxaa haatan la galay teeramkii dambe ee dugsiyada hoose dhexe sare ee Puntland arday badan oo fasalka 8 ahna waxay diyaargarow adag ugu jiraan inay guul ka gaaraan imtixaanaadka wasaaradda si ay ugu gudbaan dugsiyada sare balse saddexda dugsi sare ee degmada Burtile ee Burtile Secondary School Al-Mumtada iyo Chalam ma ay haystaan fasalo ku filan ama ay geeyaan ardayda cusub halka dugsi walba uu haysto dhul aad baaxad weyn oo ay gali karaan dhismayaal ama qaybo cusub oo fasalaha iyadoo ay dhinaca kale waalidiinta ardayda maamulka degmada iyo ganacsatadu diyaar u yihiin inay qaybtooda ka qaataan dhismayaasha dugsiyadaasi daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinteena tabiyaha TV-ga dowladda Puntland toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay guud ahaan waxbarashada degmada Burtile tan intaan xubin kale oo noocan toddobaadka dambe ku kulmayno waa guuleysaaid haatan la idinku celiyo khadra